munaasabadan tababarka loogu soo xiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, wasiirka difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji, wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed, taliyaha qaybta 6aad, safiirka boqortooyada Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya iyo marti sharaf kale. waxaana ciidamadii tababarka loo soo xiray ay meesha ku soo bandhigeen tababaradii kala duwanaa ee ay qaateen. taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta 6aad waxa ay tilmaameen in ay ciidankan ay qayb ka noqon doonaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sugidda amniga guud ee dalka. laga bilaabo saacadan oo koorsada loo soo xirayo waxay bilaabi doonaan howlgal oo la arki doono insha Allah maalmaha dhow guulaha laga gaaray. waxaan ognahay ururkii ka horeeyay 45aad oo koorsada dhameystay oo ka horeeyay ururkan waxay muujiyeen karti iyo geesinimo. waajibaadkii la siiyeyna way dhameysteen oo si sax ay u gudanayaan, cadowgana way ka adkaadeen. ururka 46aad oo hadda horteen taaganna sidoo kale ayaan rajaynaynaa. geega shalay ma ay tahay meel ay shabaab la dagaalamay shileedii ay tahay dadkii aad ku tabti oo tuuliyaa ku tabti geega la barakiyo ay dhibaatada ku weyn jirto way geegi beermal abuuro hay xoolo dhamaadeen hortan wala ka dhagamaan intaas ahayti dadka la fado intii difaacan dadka la fado intii dadkii meeliyo ka nagaan dadkii hor suran waa askartiin waa taa fiiso asiil suuq fado hay intii ku howlgalaan dadkii ka nagtaan cadowgeen meel ku bidaan ku burburidaan. wasiirka difaaca dalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa waxa uu tilmaamay in ay wadaan tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay ula wareegaan ammaanka guud ee dalka. waxaan sii wadaynaa wasaaradda gaashaandhig ahaan inaan la xiriirno dalalka saaxiibada aan nahay ciidamo qaran oo ku filan Soomaaliya ilaalin karo madaxbanaanidooda iyo gobonnimadooda ilaaliyo yan ku dadaalayna insha Allah. dhinaca kale waxaa munaasabada khudbad ka jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, waxaana uu madaxweynaha uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku biiraan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed. marka ugu horeyso sharaf ay tahay inaan qayb ka noqdo oo maantana goobjoog u ahaano qalinjabinta ururka 46aad ee guutada 8aad qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar qiimo badan inta lagu siiyay. sharaf ay tahay qalinjabinta inaan kala soo qayb galo. waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan kaga hambaliyeeyo qalinjabintan iyo waxbarashadii iyo guushii aad soo gaarteen. hambaliyo inaad noqotaan kuwii wixii la soo baray iyo aqoontii iyo taatiigii iyo training-kii ay qaateen dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ku difaaco inaad noqotaan baan idin rajaynayaa insha Allah taala. saa ogtihiin dalkan wuxuu soo maray iyo waxa uu hadda ku sugan yahay iyo dawlad dhiska Soomaaliya meeshay marayso leen kaga ma sheekeynayo. inta u badantiin xogaal baa u tihiin. waxaa la socotaan maanta Koonfur Galbeed oo aad ciidankii xoogga dalka oo loo soo tababaray u tihiin marxaladda ay ku jirto oo ay geliyeen ilmo yar oo tababarkaad qabtaan aanan qabin oo aqoonta aad leedihiin aanan lahayn oo geesinimada aad haysataan aanan haysanin oo dawladda aad haysataan aan haysanin oo dawladaha caalamiga ah oo idin taageeray aysan taageereynin inay jidadka inka kala gooyaan, beer abuurka idin diidaan, guryihiin inaad tagtaan idin diidaan,
shacabkiinnii iyo hooyooyinkiin iyo walaalihiin iyo xaasaskiinnina ay go'doon geliyaan adinkoo intaanoo tababar a qabo waxaa weeye waa nasiib darro weeye waxaan rabnaa marka annagoo og daruufta lagu jiro iyo waxa socdo iyo dadka hortaagan dowladnimada Soomaaliya iyo dhibaatada ay wadaan tababarkiinaan in looga faa'iideysto dalkiina iyo dadkiina iyo diintiinaba ku xoreysaan adowgan iyo gumaysigan iyo ciyaalkan yaryarka ah oo maskaxda laga gumaystay oo ummadda hooyadoodii iyo aabahood lagu soo diray aad ka qabataan howlgallana fulisaan deegaanada la haystana xoreysaan jidadka oo dhan isku furtaan adinkoo adeegsanayo tababarka qaadateen iyo traininka qiimaha badan oo leedin siiyay adinkoo adeegsanayo dowladnimada Soomaaliyana u hiilinayo dad qaran ahna inaad waxa la inka filayo maanta in la inka helaan rajeynayna insha Allah intaas kadib waxaan rabaa inaan inta uga mahad celiyo dowladda UK oo habeen iyo maalin garab taagan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaybta 6aad iyo guud ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed amniga iyo samafalka iyo developmentiga intaba noo garab taagan oo habeen iyo maalin hiil iyo hooba nala garab taagan oo nagala jooga safiiradda iyo wafdigeeda waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalka badan oo ay geliyeen Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan Voice TV magaalada Baydhabo